waddanka Ruushka ayaa si aad ah oo diirimaad leh u soo dhaweeyay go'aanka uu baarlamaanka Norway kaga hor yimid doonista ay Midowga Yurub ku doonayaan in adduun lacageed oo gaarayo 2,500 oo bilyan oo koronka Norwejiga ah in ay ku amaahiyaan waddanka Ukraine oo ay doonayaan lacagtaasi in ay ka bixiyaan lacagaha uga xayiran waddanka Ruushka bangiyada kala duwan ee Midowga Yurub. Arrintan ayaa waxaa la horgeeyay baarlamaanka Norway waxaana soo jeediyay in arrintan Midowga Yurub ay ku doonayaan in adduunkaas lacageed ee la doonayo in lagala baxo khasnadaha Ruushka lacagaha uga xayiran tahay ee Midowga Yurub ay Norway qayb ka noqoto. Waxaana arrintaas soo jeediyay in Midowga Yurub lagu raaco oo lagala shaqeeyo xisbiyada Høyre, MDG, KrF iyo Venstre. Yeeshee waxaa arrintaa ganafka ku dhuftay xisbiyada Arbeiderparti iyo FrP iyo sidoo kale Central Party kuwa oo aqlabiyad ku leh baarlamaanka, waxayna sheegeen in aysan arrintaa ku raaci doonin Midowga Yurub iyo sidoo kale wadamada bahwadaagta ay yihiin oo ay ku doonayaan in adduunka lacageed lagala baxo khasnadaha lacagta ee uga xayiran tahay wadamada Yurub ee Ruushku leeyahay. Arrintan ayaa waxaa si cad u soo dhaweeyay safiirka waddanka Ruushka u fadhiyo magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway, Nikolai Korjanov, oo ku tilmaamay go'aanka baarlamaanka Norway qaatay in uu yahay mid aad loo soo dhaweeyo oo lagu farxo. Waxa uuna sheegay arrintan ay Midowga Yurub ku doonayaan in lacagaha Ruushka uga xayiran wadamada Midowga Yurub ay ku isticmaalaan kuna amaahiyaan waddanka Ukraine in uu yahay dhac toos ah oo la doonayo in lacagaha uga xayiran Ruushka lagu isticmaalo. Wuxuuna arrintaa ku tilmaamay mid looga soo horjeedo wadahadallada uu garwadeenka ka yahay Mareykanka ee lagu doonayo in xal waara oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba looga gaaro dagaalka afar jirsada ee ka socda waddanka Ukraine oo u dhexeeya waddanka Ruushka iyo sidoo kale Ukraine oo ay bahwadaag yihiin wadamada Midowga Yurub iyo Mareykanka oo si aad ah u taageeraya Ukraine. Norway ayuu ku tilmaamay in go'aankan baarlamaankeeda uu ku gaaray inaysan qayb ka noqon arrinta lagu doonayo in lagu dhaco hantida Ruushka uga xayiran wadamada Yurub ay gaarsiinayso Norway in ay tahay mid dhexdhexaad ah oo ka fikiraysa mustaqbalkeeda dheer ee siyaasadeed iyo dhaqaale, maadaama ay qayb weyn ka tahay ururka batroolka adduunka, saameyn siyaasadeed, mid dhaqaale iyo sidoo kale wada shaqayn xoogan ay ku leeyihiin ururkaasi wadamada soo saara batroolka iyo gaaska adduunka. Wuxuuna sheegay in arrintan ay tahay mid uu Ruushka aad u soo dhaweynayo in ay Norway bannaanka ka ahaato dhacan iyo burcadnimadan ay isu bahaysanayaan wadamada Midowga Yurub. Waxaana arrintan ay Midowga Yurub ku doonayeen in amaahda lagala baxo khasnadaha Ruushka uga xayiran Midowga Yurub u ololeynayay xisbiyada Høyre, MDG, KrF iyo Venstre. Yeeshee waxaa ganafka ku dhuftay oo cod aqlabiyad leh kaga guuleystay iskana diiday xisbiyada AB, FrP iyo SP. halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.